saacadihii ugu dambeeyey waxaa baraha bulshadu ku kulantay ee social mediaha si weyn loogu lafagurayay maqaal cabasho ah oo qoray macalin maxamed cismaan siciid oo dadku u yaqaanaan maxamed soomaali kaasi oo sheegay in sifo sharci darro ah lagu joojiyey dhismo guri uu lahaa oo ka socday magaalada Hargeysa. waxa uu sheegtay in awood gaara dhismihiisa ay ku joojiyeen xubno ka tirsan qoyska madaxweyne Biixi. magaalada Hargeysa ayaa saaka kula kulmay macalin maxamed soomaali waxa uu iga warbixiyay bal waxyaabaha helay sida ku cad qoraalka guri dhul anigu aan lahaa oo markaan dhisanaynay oo dhismihiisa markaa uu socday oo muddo 2 wiiga meelaha socday oo sharcigiisa iyo nidaamka uu soo maray oo dhan waxa uu dhameystiran yahay oo waafaqsan yahay shuruucda dalka si buuxdana dawladda hoose iyo shuruucdeedu igu ogolaadeen inaan guriga dhisto oo waraaqihii iga soo wada baxeen si waliba sharciga waafaqsan ayaa amar maayirku ku bixiyay inuu ku joojiyo. marka waxa ay gubay ee qoraalka lagu kalifay wuxuu ahaa hadii lacala xitaa leega joojinayo meeshaan dhisanayaa ay meel khaldan ama khayran ay tahayba oo leega joojinayo dhiska meeshaan dhisanayo maxaa system sharciga waafaqsan leega joojin waayay oo inta telefoon lagu soo amar lagu soo baxay telefoon loogu joojiyay dhiskayga laakiin wax la tusi waayay la qancin waayo la oran waayay de waxa meesha ay tahay oo saasa way xayirantay waxa maxaa la qancin waayay laakiin telefoon loogu joojiyay hadaa talaabo qaadid ama wax ku dartidna dhibaato kaga soo kulmaysan yahay jabaadii hadidaad aniga lagu soo jeediyay taas ay gubtay waxaana qurux badan tahay wax kasta oo talaabo kasta dawladda hoose qaadayso in sharciga u marto sida sharciga in loo maro maaha ninkan ama qofkan de hantiba ka baaba'aysan lacag ba ka baabay kharash buu geliya maaha qofkii soo kharashaysan hawli culaysan inta telefoon la soo garaaco ninkii ugu sareeyay maanta maayarka loo doortay inuu telefoon uu ku joojiyo oo uu ku amro shaqaalaha ka hooseeya meeshaas hadii inta la dhaafiyo hal dumiyo waxaad noo sheegtaa xillimaad adigu dhulka sharciyeysatay yaad se ka iibsatay markii hore dhulkan 2013 buu gacanteeda soo galay anigu waan maqnaa marka Addis Ababa ku maqnaa arrimo qoys baan ku maqnaa 2013 marka hooyo oo joogta magaalada degan Hargeysa ayaa dhulkan markii ugu horeysay heshay way soo shaxay hooyo dhul jaban baa jira oo saasoo aan iibinaya waxbaan isku habayno iibi baan kuuri dhulkii dabeetana hooyo sidii bay ku soo iibisay dhulka cidaanu ka iibsanay waa cid la garanayo caan weeyaan waa wasiirkii hore nin wasiir dhowr jeer wasiirka dhowr meelood soo kala qabto wasiir ka soo noqday dawladii hore Axmed Maxamed Silaayo waxa weeyaan waa Yuusuf Cismaan Cabdi Garas ninkii loo oran jiray ninka wasiirka ah ba isagoo waliba waxa weeyaan xiliyada 2010 xiliyadaas ayuu dhulka naga iibiyay اللهم صل على محمد هنجي إيبي وحا حتى إيفان ضمن المال كاها يلا garanayo سلطان أحمد طاهر ويمكا دبدمسكا كحجين كأه تريك حين كدبدمسكا نكاسنا ودم المال وطن طايدي شرعي هيد مركا هوي وكجي إيبي الله بدو يكون يصدق حتمكي وطن طايدي مع ساحية دي يضوضتها وضرتها الله بدو يكون يصدق حتمكي بشي كوبي تونس تحلاتك كيدي بحيد مركا النوت هذا الله نوتايدان ay kala qoranay magaca hooyo Khadar Axmed Yuusuf oo ku soo baxday iibsiga dhulka iibsatadu iibiyuhuna waxa ninka wasiirka Yuusuf Ismaan Cabdi Garas oo uu joogay imika waxa ugu maqaalay inuu Ethiopia Addis imika uu joogo oo la heli karo xitaa isaga laftiisa mulkiyadan inteeda badan isagaaba waxa weeye markii aan meesha ka iibsanay isaga mulkiyada soo saaray kuna mulkiyada soo dhameystiro meesha mulkiyada sharcigeedu dhameystiran yahay soo saaran oo keen marka mulkiyada inteeda badan yadaaba soo saaray isaga soo saaray Yuusuf baa soo saaray oo sharciga waxan buu soo dhameystiray marka sidaas uu dhulku nagu soo galay gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur oo sida dukumentiyada ku cadba dhulka hadda xayiraad la saaray ka gudoomiyaha waxa uu sheegay inay tahay iibsadihii saddexaad sifo sharciyana lagaga joojiyay hadda dhulka oo sifo sharciya loo maray adiguna waxa sheegaysaa inaad dhulka aad u martay sifo sharciya sidoo kale waxa uu sheegay gudoomiyuhu in waqtiga dhulka gacantaada uu soo galay dukumentiyadani ay ka bilaamayaan 2015 arrimahaas maxaad ka leedahay cidna waxa weeyaan dad firmayno cidna beenki ma sheegano cidna dambi saarmayno dambiga marka imika say wax u socdaan aan arkay ilaa waxa weeyaan qaabka wax u socdaan boqolkiiba boqol waxa dambigan oo dhan horta iska wada leh waxa weeyaan waa dawladda hoose weeyaan dadka madax isku wada gelinaysa
iyadaa waxa weeyaan dadkii isku wada dirayso isku wada horkeenaysa iminka hadalkan 2015 uu leeyahay gudoomiyuhu wuu soo galay ninkan sharciga iyo dhulku uu iibsaday waad aragtaa nootayada 2013 baa ahayd markan nootayada haddaan eegno warqadii codsiga waatan ay hooyo marka sharciga la sameeyay ku codsatay in loo soo in dhulka loo soo eego dawladda hoose warqadii halkan say nooga muuqatay iyaduna waa bishii 2013 soo wad cashuurihii iyo marka systemkii la dhameystiro waa ta warqada warbixinta cadaynta degmada Ibrahim Koodbuur waa tan warqadan waad aragtaa waxa ku saxeexan waa xilliga warqadan soo baxday waxa weeyaan waa 2013 bisha 2019 waxa ku saxeexan Naasir Caydiid ayaa gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur ahaa waa iminka waa wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha weeyaan Naasir Caydiid isaga ku saxeexan oo gudoomiyihii degmada markaa ahaa madaxii qorshaha degmada Ibrahim Koodbuur ku saxeexan yahay dhammaan waad aragtaa warqadda inay ilaa shaambadii ilaa systemkeedii ilaa waa taa halka soo bixida tirsiga ay ku soo baxday waa taa halka ku wada yaalan wuxuu wada muuqdaan waa 2013 markaa waa tan casayntii waa taa warqadda casaynta waad aragtaa gudidii loo saaray waad aragtaayo waa taa meeshii soo caseeyeen 15 kan uu ka hadlaya waxba kama jiraan talabaad mid baan kuu sheegayaa meeshan laga hadlaya ma aha meel beeraba gudoomiyaha maanta hadlayay warqadii ka soo baxday waatan geesta kale waxay suurta gashay in la kulmo gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa Yuusuf Xuseen Kaahin oo markaasi xafiiskiisa ku sugnaa waxaan weydiiyay su'aalahan marka hore gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur ee magaalada Hargeysa ayaan jecelahay inaan weydiiyo sababta ay u joojiyeen muwaadin reer Soomaaliland oo haysta fayl dhameystiran oo sharciye oo gurigiisa dhisanayay sababta loo joojiyay horta macallinku oo jirto ilaa shilta qeylay soo maqlay dhulka uu ka dhistay dhismaha ka dhisay dhul xayiro dacwad ka socoto anigu xafiiska ku cusbaa oo imika waxaan joogaa laabirood ha haatee xayiraadda dhulkana ma hayn intii ka dambeysay ayaa la keenay xayiraadda dhulka kabacdi waxaan ogaaday macallinku inuu iibsado gacan saddexaad yahay inuu yahay maadaama uu iibsado saddexaad yahay dee isaga cidda dhulka haysata waxba kama dhexeeyaan cidda dhulka ka iibsay inuu lacagtiisu doonto aybu waajib ku ah inuu cid kala fadeexadeeyo iyo inuu cid kale qoys madaxweyne u galo iyo inuu yidhahdo joobitaraa sidaa yidhi midnaba maaha maadaama uu iibsado gacan saddexaad yahay inuu ciddii wax ka iibsay u doonto lacagtiisii waxaa sheegtay inuu haysto sharci oo yahay iibsada ee gacantii saddexaad sidoo macallinku sheegay wuxuu haystaa fayl sharci oo dhameystiran oo dawladda hoosteed adigu xubinta ka tahay ka soo baxay yaa siiyey sharciga dhulkaasi maadaama ay ogtihiin inuu waxaan oo khalad oo dhulka xayiran yahay uu dhismihiisa ku bilaabay dhul aan marka hore rabshadiisa haysa ka jirin oo intoo faylka laga sameeyo tool ciddii lahayd markaa dhibara ka hayn ay ciddii lahayd waqtiga iyadu haleesho ay dacwadda ka furato faylkii ka baxay muxuu noqonayaa adiga ayuu ku weydiiyay su'aashaasi faylkii ka baxay muxuu noqonayaa waa sharci ma hadee waa sharci dawladda hore sameysay sharcina ma aha waa dhul qofleeyay oo ku dacweeyo mudane gudoomiye hadda waxaad ii sheegaysaa fayl dawladda hoose ka baxay oo sharci ahayn oo gadaal sharci darro ka noqday shaqadaad bulshada u haysaa waa inaad kala hagtaan dhulkooda iyo hawlahooda idinku miyadan ku fashilmin shaqadaad bulshada u hayseen maadaama ma faylal khaldan ay ka baxayaan xafiisyadiinii baan kuu sheegayaa systemku maalinta ka dambaysa ayuu horumar gaaraya horta waan kuu sheegayaa waxaan kaaga warramayaa maanta electronic buu maraya oo faylkii hor iman jiray saxiixi jiray computerka horteeda yaala system buu maraa imika warqadada ma soo warta aniga wuxuu maalinba tadawar buu samaynayaa marka waqtiyadii dhabarka casaynta iyo barnaamijyada qaarkood aanay shaqaynhayn laga yaaba inuu faylku baxay faylku uu sitaa waxa weeyaan ilaa 2000 qiyaastii 2015 meelaha ama 2014 adigu calaa xaal faylku ha baxo laakiin dhulkii qofaa ku ashkatooday soo maaha isagoo fayl haysta dhulkii qof ku ashkatoodo dee waa la joojinaya oo dacwad ka furanto oo adaa sharcigu soo saaraan xayiraad saas loo joojinaa sida yaa joojiyay dhulka maamulka joojiyay ama aniga ha ahaado mid ka sarreeya hadee adigu cid gaari doonhayn doosada adigu cid gaari doonaysa
wuxuu sheegay mudane gudoomiye in maayarku uu si toosa ula xidhiidhay inamadii joomitarada ahaa ee kormeerayaasha ahaa taasna ay keentay weliba si gaara aan u xuse kormeerku xogtuu siiyey ay ahayd in wiilu madaxweynuhu abti u yahay dhulka isku haystaan kormeerayaasha sidaa u sheegay magacyadood waa kuwa saaka xabsiga u taxabtay baa laleeyahay oo kormeerayaashii waad xidhay kadib markii maqaalka macalinku social mediaha ku bahay maxaa ka jira xarigooda ma jiraan saaxiib taasi cid anigu shaqaalahan gudoomiyaha ka hay dhaafi kartaana ma jirto soomaalitan waxay dhaheen ma jiraan waa been weyn taasi waayo gudoomiye yuusuf degmadan ibraahim koodbuur ayaad gudoomiye ka tahay waxaa ka jira annaguna xarunta telefishinkuna ay ku taallaa degmadan waxay ka mid tahay degmooyinka ugu dakhliga badan caasimadda ee soo gala haddana markaa aragta degmadu si gaarabad moodaa inay dayacan tahay marka laamiyada loo eego qashinka waddooyinka tuulan dhaqaalaha soo gala degmada maxaa idinku ku qabataan annagu tasarruf kuma sameeyno degmooyinku ma sameeyaan oo degmooyinku ma sameeyaan inay lacagta iyo ku shaqeeyaan kale horta qoladiina saxaafadda hadiyo goor waa nimankiina isu kombeer gareeya berbera iyo hargeysa berbero xaafadda koodbuur barhkeed leeg weli ka dakhli badan hargeysa iyabaa isu kombeer gareysan hargeysa waxaa ka soo baxa ee dadku cashuur bixiyo iyo waxay u baahantay baa kala badan idinkuna waa arkaysa haddii aan dheskritin sakariya sudaysi telefishinka sahan hargeysa